السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال وعن ونكسن كسو دوادا channel كفايدة ميديا official waxaan soo qaadananaa warbixin ku saabsan dalka iyo Mareykanka. Ciidamada FBI-da Mareykanka ayaa baaraya haddii laabtoobkii laga xaday xafiiska guddoomiyaha aqalka wakiilada Nancy Pelosi laga iibiyay sirdoonka Ruushka. haweeney 22 jir ayaa kombiyuutarka ka qaadatay dhismaha Capitolka ciidanka dhana Williams waxaa maxkamadda u gudbisay sarkaal ka tirsan FBI-da. waxaa la sheegay in Mr. Williams lagu arkay telefishin iyadoo hagaysa dadkii weeraray dhismaha Capitolka 6 January. sarkaalka FBI-da ayaa sheegay in Mr. Williams ay kasoo muuqatay inay tahay qof baxsada. Williams waxay ka mid tahay in ka badan 200 oo qof oo kiisaskooda la furay tani wixii ka dambeeyay markii taageerayaasha madaxweyne Trump ay xoog ku galeen dhismaha Capitolka Hill. xilligaas oo Kongareesku uu kulan ka yeelanayay xaqiijinta in Joe Biden ku guuleystay doorashada. ammaanka ayaa aad loo adkeeyay hadda iyadoo maalinta berri ay dhici doonto caleemasaarka Joe Biden, waxaana laga cabsi qabaa in weeraro dheeraad ay geystaan kooxaha midigta fog iyo kuwa kale oo rumaysan sheegashada madaxweynaha Trump inay doorashadii lagu shubtay. sarkaalka FBI-da ee maxkamadda ka dhaartay ayaa sheegay in arrintaasi uu soo sheegay nin uu xiriir hore kala dhexeeyay Mr. Williams oo la sheegay inay doonaysay in laabtoonka ay ka xaday xafiiska Mr. Pelosi oo afhayeenka dimuqraadiga ee aqalka wakiilada uu gudbiso qof jooga Ruushka. waxaa la sheegay in Williams ay doonaysay in kombiyuutarka ay u dhiibto qof ay saaxiibo yihiin oo ku sugan Ruushka, kaasoo kadib qorsheyn lahaa inuu qalabka ka iibiyo serveriska waaxda sirdoonka arrimaha dibadda ee Ruushka. arrinta waxaa hadda ku socda baaritaan. madaxa shaqaalaha xafiiska Pelosi Dario Hamel ayaa 2 maalmood ka hor Twitter ku soo qoray in weerarka kadib laabtoobka laga xaday xafiiska afhayeenka, balse kombiyuutarkaas kaliya loo adeegsan jiray khudbad soo jeedinta. sarkaalkan ayaa sheegay in intuu socday muuqaalka laga duubay weerarka laga sii daayay ITV News in laga arki karay lagana maqli karay haweeney lagu magacaabay Mr. Williams oo kooxdad ku hagaysa jaranjarada aadam xafiiska Mr. Pelosi. warbixin kale oo isla telefishinka laga sii daayay waxay wareysi lagula yeeshay hooyada Mr. Williams oo ku sugan deegaanka Harrisburg, taasoo xaqiijisay in gabadheedu ay tahay haweeneyda laga arkay muuqaalka telefishinka. waxayna sheegtay in gabadheedu ay guriga ka baxday iyadoo aan la socodsiin halka ay aadayso. sarkaalka FBI-da ayaa sheegay inay jiraan sababo loo rumaysan karo oo in Mr. Williams ay gashay dambi iyadoo u dhacday dhismooyinka ay ogtahay in ay xadidan tahay gelitaankooda kuna lug yeelatay falal lagu carqaladeynayo howlaha dowladda Mareykanka.